بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intiinii markii hore xogaa yarka iga daawatay waa idinka raaligelinayaa. xogaa cilad farsamo baa dhacday. horeyna waa idinkugu sii sheegay afeefto. waxaa weeye habeenkii koowaad aan barnaamij toos soo gelayo, marka wax walba okay ma wada noqon karaan, iskuma wada hagaagi karaan. marka khaladaad yar baa dhacay. insha Allah waxaan rajeynayaa marka inaan ka gudbi doono. dhammaantiin salaan kadib waxaan jeclahay inaan caawa idinla wadaago qodob ka hadlaya kaalinta bulshadu uga baahan tahay aqoon-yahanka Soomaalida ah ma ka soo baxay mise waa gaabiyey oo halkii laga rabay ma joogo. jawaabta su-aashaas waxaan heli doonaa inta aan muuqaalkan ku dhex jirno haddii Ilaah yiraahdo. marka hore waxa u baahan inaan qeexitaan yar ku sameyno. aqoon-yahankan ka hadlayno waa kuma, maxaa aqoon-yahan la yiraahdaa, yaa la yiraahdaa aqoon-yahan. wax badan baa laga yiri, buugaag badan baa laga qoray, waxaa laga yiri muxaadaraad ama lagjaro ayaa laga jeediyey aqoon-yahanka. laakiin waxaan isku dayayaa insha Allah in aan soo ururiyo qodobada, maadaama qodobada qaarkood ay isku dhow yihiin. waxaan rabaa 2 ama 3 inaan ka dhigo. kow, inuu baahi iyo rabitaan u qabo inuu wax ku soo kordhiyo bulshadiisa. marka taasi waa xagga niyadda. qodobka labaad wuxuu noqonayaa in uu leeyahay aragti iyo hal abuur. waxbuu bartay, sax, shahaado sar u haystaa ama shahaado dhex u haystaa, ama adigu aqoon-yahan baa lagu sheegaa oo lagu tilmaamaa, waana leeyahay aqoontii. laakiin mid laga sii rabaa waxay tahay in uu yahay qofkaas qof aragti leh isla markaasna curin leh oo wax curin kara. uusan ahayn qof copy paste ah oo waxa uu bartay ee loo sheegay keliya ku eg inuusan ahayn. taana waa qodobka labaad. qodobka saddexaad, inuu yahay qof waxtar leh oo bulshadiisa anfaca. hadduu nool yahayna maaragtay anficiisa la arko, hadduu dhintana bulshada wax uga taga. dadka waxaa kala jira sida ay carabtu tiraahdo qof nool laakiin nolosha ku dhex dhintay. macnaha waxay ka wadaan qofka bulshada aan waxba ugu oolin, iyo qof dhintay oo ciidda hoosteed ku nool. waxa weeye waa qof dhintay wuu tegey, laakiin bulshada ayuu wax uga tegey. aqoon buu uga tegey, ilbaxnimo uga tegey, wax badan buu dadka taray. marka waxaas ayaa qofkaa waxay ka dhigayaan qof nool oo kale. marka aqoon-yahanka qodobkan labaad haddaan soo ururiyo waxa weeye qof leh aragti iyo hal abuur waxna soo kordhiya. qodobka saddexaadna wuxuu noqonayaa qof leh qof dadka wax uga taga oo maalan wax qora, cilmi baaris sameeya, maaragtay taasoo la eg bulshadiisa. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa aqoon-yahanka inay dadkii la hadlayaan, wuxuu sheegayaan, laakiin meesha ay ka hadlayaan, mawjadda ay ka hadlayaan iyo meesha dadkiisu jooga inay aada u kala dheer yihiin. marka taasina waxay noqon kartaa qof fuusto hoos ka duleysha biyo ku dhaaminaya.
wixii markaa dee ma noqonaya wax anfac leh. waxaa la rabaa dadkii in wax u gudbinayo ay yihiin wax dadka la eg oo ay fahmi karaan. intaas haddii aan ku soo ururiyo aqoon-yahanka, iyadoo ay qodobo kale jiraan, waxaan rabaa inaan u gudbo maxay yihiin caqabadaha hortaagan aqoon-yahanka Soomaalida. dabcan caqabado waa jiraan oo kuwaan ka hadlayno oo kaalintii aan rabnay ayaa muuqata in uusan weli ka soo bixin aqoon-yahanka Soomaaliyeed. marka maxay yihiin caqabadaha hortaagan? qodobkaas ayaan rabaa in xoogaa isdul taago. kow, horta aqoon-yahanka Soomaalida in badan oo ka mid ah oo aad hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblo aad u taqaanaan, waxaan ku arkay oo caqabad ah inaysan xiriir wanaagsan la lahayn bulshada. horta caqabadaha jira qaybna waa mid isaga ka timid dhinaciisa, qaybna waxay ka timid dadyooga kale oo ku hareeraysan oo noocyada bulshada qaybahooda kala duwana. kuwa isaga xaggiisa ka yimid caqabadaha waxaa ka mid ah inuusan xiriir wanaagsan la lahayn bulshadiisa. taasi waa caqabad, sababtoo ah haddii ay kala go-an yihiin oo xiriir aysan lahayn oo uusan la hadlin, wax u sheegin, wax u qorin, haddii waxa weeye caqabadaasi xaggiisay ka timid, waana wax keeni kara ama keenayba inuu gabo kaalintii bulshadu ay ka rabtay ama isagu uu ku fadhiyey, wuu gabayaa. marka xiriir la-aantaas ayaa waxaa ka dhalanaya in booskii asagu u baneeyey ay galaan dad aan ehel u ahayn dadka inay soo hor istaagaan ama wax u sheegaan. tusaale yaraan idin siiyo, baraha bulshada dadka Soomaalida aad bay u adeegsadaan, sida hadda Facebook oo kale. haddaan idinkala hadlayo, Facebookaas dadka ugu badan ee adeegsada, ee dadka ugu badanna ay raacsan yihiin ama ay followerska u yihiin, waxa weeye dad aan bulshada wax wanaagsan u sheegin, wax wanaagsan u keenin ama u soo gudbinin. waxay u badan yihiin dad wax maalaayacniya ka hadla, dad ka hadla qabyaalad iyo isku dir, dad caayo qabiilada iyo ashkhaasta iyo dadka sharafta leh, dad caaya. sababtoo ah dadku waxaad moodaa inay xiiseynayaanba mawduucyada noocaas. waxaan isleeyahay sababta ay dadku halkaa ugu xiran yihiin waxaa ka mid a waxaa booskii baneeyey dadkii la rabay inay ummadda hor yimaadaan, wax u sheegaan, la wadaagaan aqoontooda, halka qalloocu ka jira ka toosiyaan. dadkaasaa booskii baneeyey. maadaama marka meel cidlaha ay ugu soo dhacday dadkan wax magaradka intooda in badan oo ka mid ah, inta badan yaana oran, waxay heleen fursad qaali ah oo ay dadkii iyagu ku kaxaystaan, ilaa ay dhacday in qof aan waxba sheegayn iska daa inuu wax fiican sheega ama wax sheegee wax xun sheegaya oo ummaddii akhlaaqdeedii ku cayaaraya oo akhlaaq xumo u horseedaya oo maaragtay cay iyo waxbaas ka shaqaynaya, inay dad badan ku xiran yihiin. waad la socotaan, hebel iyo hebel iyo heblaayo iyo hebel waxay caan ku yihiin wax xun. dadkuna ama ha xiiseeyeen ama kuwo kaloo iyo kuwa lamida ha ku xirnaadeen oo kan warkiisa iska dhegaysteen, dadku dadkaas ayaa haysta oo rigiistay. haddee dad xishoodana maaha inta badan. marka qofkii xitaa ay maaragtay xoogaa ka dareemaan inuu barnaamijkooda kasoo horjeedo, waxaa laga yaabaa inay xigtaan oo waxun ka sheegaan oo caayaan, ilan dad xishoonaya maaha. marka
arrintaasi dhaawac bay waxay ku tahay bulshada soomaalida, aad bay dhaawac ugu tahay inay xeer u yihiin ama ay ku xiran yihiin dad wax macnaa leh aan u sheegin, bal dad wax xun u sheegaya inay ku xiran yihiin ayaa nasiib darro ah. halka aan sheeko yar dhex geliyo, muddo haatan laga joogo qiyaastii 4 sano baa milkiilaha facebooka aaladan soomaalidu aadka ugu xiran tahay ayaa waxa uu casuumaad, habeen weliba soona bay ahayd, ramadaan bay ahayd, wuxuu casuumaad u fidiyey dad Soomaali ah oo dalka Maraykanka. marka uu casuumay kadib wuxuu uga mahad celiyey isticmaalkooda Facebook iyo si ay u adeegsadaan inay yihiin bulsho aada ugu xiran. wuu u mahad celiyey sababtoo ah isticmaalkan anigu hadda aan ku jirno isticmaalayno shirkado iyo dadkii barnaamijkan lahaa dee lacag baa u socota oo bilaa faa'iido ma aha, faa'iido xoog leh bay helayaan. maadaama ay saas tahay marka dee qofku cidda isaga ku xiran ee faa'iidada u keenaysa dabcan waa jeceli. marka dadka Soomaalida uga mahad celiyey sida ay Facebook ugu xiran yihiin. kadib wuxuu soo hadal qaaday, wuxuu yidhi waan jeclaan lahaa inay caawa ku jiraan dadka aan casuumay ee horteeda fadhiya 2 qofood oo Soomaali ah oo aad loogu xiran yahay. kadibna wuxuu sheegay 2 qofood magacyadooda, ma raba anigu inaan idin sheego. waa qof dumar ah iyo nin Facebook dadka ee markaa isticmaalayay ay aad u garanayeen, hadda laftigeedana la garanayo. wuxuu yidhi 2 qofood midin ku jiraan, markaas si gaara ugu sii mahad celin lahaa buu yidhi. markaasaa lii maya naguma jiraan. dadkii Soomaalida ahaa marka 2 qofood la weydiiyey ayaa waxa ay yiraahdeen qayb ka mida dabcan, war 2 qofood waaba dad waalwaalan, waa waalan yihiin bay dhaheen. markaasuu wuxuu yidhi haddaama idinkaa waalan, sababtoo ah dadkaas waalwaalan idinku aad sheegaysaan baad ku xiran tihiin oo dadka ugu badan ee Facebook lagu taxan yahay waa 2 qofood. marka see wax idinka yihiin? su-aashaas jawaabta ay iyagu ka bixiyeen ma helin, laakiin intaas way dhacday oo waa lii xaqiijiyey. marka bal ceebta noocaasa ka waran, hadda qofka raba bulshada Soomaalida inuu ku sameeyo qiimeyn, ninkaas hadda waxaa la siiyey farsamadii uu ku ogaan lahaa dadkan iyo say u fakeraan iyo caqligooda wuuna hayaa. sababtoo ah dadku hadday dad noocaasa ku xirmaan oo dadka ay ka sheekeynayaan iyagu kirsan yihiin inay waalan yihiin, ay ku xiran yihiin oo xer u yihiin, haddii taas macnaheedu waxa weeye qof waxa weeye dadkii baa faaruq u badanba dadka isticmaalaha baraha bulshada. way jiraan dad wanaagsan oo khayrka iyo wanaagga iyo ummadda anfaceeda ka shaqeeya ama u sheega, laakiin bal idinku isbarbar dhigo oo dadkaas dadka ay haystaan oo xerta u ah iyo dadka wanaagga ku xiran yaa badan. taa jawaabteeda idinkaa idinka tegaya. marka halkaa waxaa ii geeyey xiriir la-aanta dadka aqoon-yahanka ee Soomaalida ah kala dhexaysa bulshada Soomaaliyeed oo maaragtay meesha ka baxay ama kuwa dhow inuu ka baxo ayaa waxaa faa'iido ka helay oo ka faa'iidaystay oo soo dhex galay oo bulshada intii badnaydna ay ku xiran yihiin dad aan booskooda buuxin karin, ummaddana u horseedaya akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo. qodobka labaad ee caqabadda ku ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed ayaa waxay tahay marka ay rabaan inay hadlaan ama la maqlaba, waa marka ay siyaasad rabaan inay galaan oo ay xilal doonayaan ama isku sharaxayaan, iyo marka ay siyaasad faalaynayaan ama taxliilinayaan
oo idaacadaha iyo telefishinada looga yeero oo ay markaa falanqaynayaan siyaasad markaa jirta. intaa keliya ayaa inta hadda la yaqaan ee aqoon-yahana intooda badan baan ka hadlayaa. aqoon-yahan kasta kama hadlayo, laakiin waxaan ka hadlayaa intooda badan. aqoon-yahanka intooda badan waxaanu maqalnaa oo keliya marka ay siyaasad ka hadlayaan, marka ay xil doonayaan siyaasadeed, marka ay falanqaynayaan arrin jirta. intaasaan ka maqalnaa. marka waa caqabad kale. aqoon baad leedahay, waxbaad soo baratay, qaarkoodna in badanoo ka mid a waxaa laga yaabaa inay dan guud wax ku barteen oo maaragtay bulshada la rabay inay ku celiyaan wixii ay barteen. intaas waa caqabad kale oo aqoon-yahanka xaggiisa ka imaanaysa laftigeeda. qodobka saddexaad oo aqoon-yahanka ka maqan ee caqabadana ku ah waxaa ka mid ah gurigaa la iska joogaayo, waa la isaga shaahayaa. maadaama guryaha la joogo waa in wixii hadba maaragtay laisleeyahay waa macquul la wadaagi karo. marka dee siyaasad sax waxay ka mid tahay arrimaha bulshada haysta. waa laga hadli karaa, aqoon bay u leeyihiin, qaarkood way barteen, waa culum ay ku takhasuseen. laakiin bulshada waxaa la rabaa in wax kale oo dhiirigelin u ah baahi kaloo ay qabaan in la daboolo. marka halkaas waxaan ku garanaynaa aqoon-yahan badan oo caqabadaha waxaa ka mid ah iyadana in aysan adeegsanin aaladahan bulshada ku xiriirto. dalan inay wax duubaan, maaragtay barnaamijyo wacyigelina oo wanaagsan, barnaamijyo xiisa leh oo gaagaaban inay sameeyaan. meesha maaragta kuma jirto, mana aanan arag. way jiraan dad aqoon leh oo intaasba dadka la wadaaga, laakiin saan mar walba ku celinayo waxaan ka hadlayaa dadka intiisa badan, aqoon-yahanka intiisa badan baan ka hadlayaa, qof iyo laba ka hadlimayo. marka waxaa kaloo caqabad ah dadka warbaahinta gacanta ku haya. tusaale ahaan telefishinada oo ah maaragtay muuqaal baahiyaal aada loogu xiran yahay, hadba siday usii kala magac weyn yihiin. waxaa gacanta ku haya dad iyaguna u badan dadan hal abuur lahayn, oo waxa ay fahmaan oo keliya ay tahay siyaasad. marka xitaa haddii uu damco qof aqoon-yahan inuu casuumo, barnaamij ku casuumo, waxa uu ka wareysanayo oo keliya waa siyaasad. warbaahinta marka meelaha laynaga galay bay ka mid tahay. warbaahinta waxay ka mid tahay meelaha laynaga galay ayay ka mid tahay. waa caqabad kale oo aqoon-yahankii laftigiisa meel uu ku maaragtay bulshadiisa ku haqabtiro ma haysto. tviyadii iyo idaacadihii dadkaasa gacanta ku haya, dadkaasna waxay ka hadlaan oo keliya mawduuca siyaasadda. waxaa ka mid a caqabadaha haysta siyaasiyiinta soomaalida ama dadka xilalka haya oo col laha aqoon-yahanka. col bay leeyihiin, sababtoo ah waxay iska ilaalinayaan inuu isoo dhowaadaan. waa caqabad kale. meeshii ay ahayd, halkan ku dari doonaaye, meeshii ay ahayd in iyaga ay soo dhoweystaan, aqoon-yahanka in lasoo dhoweysto, oo haddaysan xil sare haynin xitaa ay noqdaan la taliyaal wanaagsan oo haga dadka xukunka haya, dadka wasiirada ah, haga oo wax wanaagsan u sheega, waxa dhibaya dalka iyo dadka iyo danta guudna kala taliya, oo aqoontooda halkaas ummadda maaragtay kaga anfacaan.
caqabadaasna way haysataa siyaasiyiintii baa iska ilaalinaysa sababtuna waxay tahay dabcan kursi jecelna waa jiraa oo kursigooda u baqayaan ama kuraastooda u baqayaan waxaa kaloo jirta aqoon-yahanka laftigiisa oo lagu bartay oo wata hadda qodobadii aan soo dhaafnay uu ka mid ahaa iyaga oo ka hadla oo keliya siyaasadda marka ninka siyaasiga ahaa ninkan siyaasadda ku dhaliila maalin kasta dee ma soo dhaweysanayo waa caqabad kale oo aqoon-yahanka haysata waxaan haddeer u gudbayaa qodobka xiga oo saddexaad oo ah xal soo jeedin waxaan ka bilaabi lahaa xal soo jeedinta qodobka koowaad in aqoon-yahanku uu u soo jeesto in uu daboolo bulshadiisa baahida ay u qabto inuu daboolo oo uusan furinta intuu ku banneeyo aysan halkaas soo xuluulan oo aysan soo dhexgelin oo bulshadii iyo aqoon-yahankeedii aysan dhexda ka soo gelin dadan wax macnaa u sheegaynin oo dadka intiisa badan ay ku xiran yihiin kadibna haddii bulshadii ay fasahaadiyaan oo kharibaan marka inuu u soo jeesto kuna daro dadaal ayaa looga baahan yahay aqoon-yahanka xulushay ka mid tahay waxaa ka mid ah inay isticmaalaan warbaahintu maanta aad bay u badantay aad iyo aad ayay u badantay telefishinada ama qalabka warbaahinta layska arko muuqaalbaahiyaasha way yaqaanaan dadka milkiilayaasha ka ah waxay kaloo yaqaanaan dhalinyarada idaacadahaas iyo telefishinadaas jooga ee wax barnaamijyada qabta ee wax duuba oo saasoo kale way yaqaanaan marka fursad waxay u haystaan halkaa inay ka gudbin karaan aqoontooda barnaamijyana ay samayn karaan halkaas way haystaan waxay kaloo heli karaan oo aysan cidna ugaba baahnaynba in ay maaragtay si toosa dadka ula hadlaan si toosa dee hadda kaan isticmaalina waa Facebook way leeyihiin in badan oo ka mid ah way isticmaali karaan bulshadana way u gudbin karaan wixii ilaahay baray marka umana baahnaba haddii maaragtay ay si wanaagsan u isticmaalaan qalabkan kale sida tooska ah qofka isagoon cidna xitaa aysan ka duubayn uu isticmaali karo way yeeli karaan qodobkaasna waa ku talin lahaa inay aada u isticmaalaan baraha bulshada oo ay kaalintooda kasoo dhalaalaan iyagoo wax wanaagsan ummadda usoo gudbinaya wax xiise geliya usoo gudbinaya khasab maaha inay aada u yareeyaan waxa ay ka hadlayaan sababtoo ah dadka inta ugu badan waxay ku xiran yihiin dad maalayacniga uga sheekeeya waxyaabaha xunxun iyo cayid iyo qabyaaladii waxa ka shaqeeya haddana hadla saacadii ka badan dadku waxaas waa xiiseeyaan laakiin haddii booskaasi ay galaan dad aqoon leh oo wanaagsan oo bulshada u damqanaya oo wax wanaagsanna u sheegi kara oo xiiso leh oo ay wax ka bartaan waqti badan way qaadan karaan markaad waxaa maqlaysaa qofkas wuxuu ku leeyahay dadku way naceen wax badanoo loo sheego 5 daqiiqa loo baahan yahay sax laakiin haddana dadku meelna uma socdaan maanta oo dhan Facebookaasaa lagu jiraa WhatsAppkaasaa lagu maqan yahay iyo kuwa kale waa la isticmaalayaa meel loo socdo male waxa weeye wahsi cajsi baa iska dhacay waxaa ka mid ah bulshada ay la hadlayaan inay si fiican u bartaan oo kala hadlaan wax bulshadu aan ka weyneyn wax bulshada aan ka weyneyn oo midalan wax adag aysan kala hadlin markay la hadlayaan afkooda kula hadlaan ereyada ay u sheegayaan afkooda ugu sheegaan dee haddii ay meelo kale lagjarro ka jeedinayaan af qalaad ha ku hadlaan ama carabi ha ku hadlaan ama English ha ku hadlaan ama xitaa dad
sidaasoo kale xul ah haddii ay la hadlayaan afafka kale way ku hadli karaan, waa okay, dhib ma laha. laakiin marka ay la hadlayaan si guud bulshada, waxa wanaagsan in ay afkan waa kay ku dhasheen, waa kii ay ku barbaareen, way yaqaanaan inay kooda kula hadlaan. halka ayaan ku dari lahaa. waxaan kaloo ku dari lahaa inay aqoon baaris sameeyaan. aqoonyahanku aqoon baaris ama cilmi baaris inay sameeyaan oo hal ay ku soo jeediyaan. aqoon baarista ay 3 u kala qaadaan, dabcan way garanayaan, iyagaana maaragtay anaguba aan ka baranay ama maaragtay lagaba bartayba. kow, arrinta ay rabaan inay ka hadlaan inay sawir guud ka bixiyaan oo sawiraan oo sida arrintaasi u jirto iyo mushkiladaas ay xalinayaan, ama waxa ay rabaan oo wanaagsan oo ummadda u sheegayaan inay si wanaagsan ugu sharxaan, ugu sawiraan. taa waa qodob. qodobka labaadna waxa ay ka hadlayaan sababta keentay inay aad u guraacaan oo keenaan waxaan ay ka hadlayaan halkay asal ahaan ka soo jeedaan oo si cilmi ah. tusaale ahaan, waa nin aqoonyahana ama gabadh aqoonyahanada waxay rabtaa bulshada inay ka wacyigeliso qabyaaladda. marka maxaan ka rabnaa? horta kow, qabyaaladda inay sawir ka bixiso. 2, iyo dhibaatooyinka ay leedahay. 2, sababta keentay, oo tusaale moogtahay sababta keentay qabyaaladda in iyadana aada uga hadasho oo ay taxaan ama uga hadla isagu oo ay taxaan qodobo yiraahdaan kan halkaas ka yimid, kan saasi saasaa keentay, xilligaasay bilaabatay, saasi soo martay, marxaladaas soo martay, oo si fiican ay markaa u soo gaaraan qodobka 3aad oo ugu dambeeya oo ah maadaama qabyaaladii aan soo baranay. 2, maadaama sababihii keenayna aan baranay. 3, halku halkaas ku jira, markaana ay halkii tilmaamaan. marka inay qoraallo sameeyaan, weliba aan ku talin lahaa afkooda ay wax ku qoraan. wixii kaloo ay caalamka la wadaagayaan ama dunida kale la wadaagayaan, dabcan cid walba iyo afka ay taqaano oo wax ku baratay waa ugu gudbin kartaa. oo waana si fiican inay bulshada Soomaaliyeed sawirada xunxun ee laga bixinayo oo dadka ajaanibta ah ee intaa darsaya dadka Soomaaliyeed ay ka bixinayaan, inay ka daba tagaan oo u jawaabaan oo waxa bulshada ku fiican tahayna u sheegaan, oo dadka ay baraan Soomaalida si loogu arko okiyaalo wanaagsan oo aragti fiican laga qaato halkii si khaldan loo arki lahaa. markay dadka ajnabiga la hadlayaan ama dadka xitaa Soomaalida ay dibadahaas wax ku bartay ama ku dhashay ama saasoo kale ku koray ay la hadlayaan, afafka ay yaqaanaan inay kula hadlaan waa arrin wanaagsan. laakiin markasta waxaa mudnaanta koowaad leh oo la rabaa inay la hadlaan oo maaragtay baahiyahooda kala hadlaan. waxaan ka hadlayaa bulshada Soomaalida oo ay la hadlayaan inay afkooda wax ugu qoraan ama ay maaragtay ama wax ugu sheegaan, ugu soo gudbiyaan, iyagoo afka qalaad iska ilaalinaya inay hadaladooda ku dhex daraan. marmarka qaarkoodna u muuqan karta inay ku faanayaan inay afafka qalaad aada u yaqaanaan. sax, waa ognahay inay aada u yaqaanaan, laakiin dadaan fahmayn baa jira inay marka afkooda kula hadlaan aad bay muhiim u tahay. halkaa marka qodobkaas waxaan sii raacin lahaa, aqoonyahanku waxaa qoreen inay iyagu wax qoraan oo ummadda ku hogaamiyaan wax qoraalka aad bay muhiim u tahay. sababtoo ah waxaa la qoro waqti dheer bay jiraan. waxaa laga yaabaa maantadan buugaad qortid 100 sano kadib, haddiiba ilaahay adduunka sii daayo uu sii jiro, in la heli karo oo dhaxalkii aad reebtay uu jiri karo.
marka inay aqoon reebaan oo wax qoraan oo aqoon baarisyo sameeyaan oo bulshada usoo gudbiyaan oo aragti fog ay ka hadlaan iyo ummaddan wax kusoo wajahan maaragtay u sahmiyaan oo maaragtay meel wanaagsan ay reerka u raraan. taas waa laga rabaa. qodobka kale aan ku dari lahaa waxa uu yahay bulshada laftigeedu inay aqoon-yahankooda u arkaan hanti qaran oo ay leeyihiin, hanti qaran oo ay leeyihiin inay u arkaan oo ayan dhayalsan, inay madaxa korkiisa saartaan oo maaragta u arkaan inay yihiin ilaahay baa badbaadada leh, laakiin sababaha lagu burburka looga badbaado ama dib loogu kabto ama maaragtay barwaaqo iyo horumar lagu gaaro inay tahay dadka aqoon-yahanka ah oo laga dambeeyo, la dhegeysto, aqoontooda la maalo ayaa bulshadana looga baahan yahay. sidoo kale waxaa loo baahan yahay dadka siyaasiyiinta ah inaysan ka cararin aqoon-yahanka, in aysan ka cararin ayaa iyadana baahi weyn loo qabaa. sababtoo ah haddaad u fiirsatid dadka siyaasadda hoggaanka u haya inta badan dadka ku hareereysan la shaqeeya ma aha dad ay aqoon ku xusheen, inta badan ba ka hadlaya, laakiin kama hadlayo qof kasta kama hadlayo. marna ma raba inaan wax xamimo, sababtoo ah waxaa lasoo helayaa dad wanaagsan oo aqoon leh oo damiir fiican leh oo damqanaya oo maaragtay waxaan ka hadlayno iyo wax maaragtay kaalimaha aan rabno buuxiyey intii tabartooda oo karaankooda, laakiin waxaan ka hadlaynaa inta badan marka taani inaan la socotaan baan jeclahay. marka dadka siyaasiyiinta ah waxa wanaagsan inay isku hareereeyaan dad aqoon leh oo bulshada wax tari kara, oo talooyin fiican keeni kara, oo dhibaatooyin ka digi kara baa la rabaa inay isku hareereeyaan. laakiin in qofkan waa ila soo shaqeeyey, qofkan sibaan isu xignaa, qofkan talama keeni kara macquula marka anaa hogaaminaya, sax ma noqonayso. waxaa wanaagsan in dadka bulshada anfaca u leh lasoo dhoweysto. iyagana laftigooda waxaa laga rabaa dadka aqoon-yahanka aan hadda ku sheegayno in ay dareemaan ummaddu inay u baahan tahay, waddanku u baahan yahay, qaranku inuu u baahan yahay. sidaa daraaddeed inaysan gaar isu maaragtay gaar isu soocan oo aysan ummadda ka fogaanin, ummadda ka mid ahaadaan waxna la qabtaan. qodobkayga ugu dambeeyo aan rabo inaan baraarujiyo wuxuu yahay aqoon-yahanku dhib kuma hayaan dalka, dhib kuma hayaan dadka. ma jiro anigu intaan ogahay, anigu aqoonteeda intaan ogahay qof aqoon-yahan lagu sheegi karo oo ama ummaddu u taqaano inuu yahay aqoon-yahan oo xumaan la taagan dariiqa bannaanka ah. waxaan u malaynayaa inuusan badnayn hadduu jirana. marka waxay u badan yihiin dad iyaga laga nabadgalo xumaantooda. qof aan xumaan lahayn ma jiro oo shakhsi ahaan iyagu marka gaar ahaan looga hadlayo dad wanaagsana, laakiin waxa aan ka rabnaa waxay tahay inayna anfacaan oo waxna taraan oo aqoon noo soo gudbiyaan oo maaragtay ay maaragtay naga qabtaan waxyaabaha xunxun oo ay maaragtay kor iyo hoosba ay ummadda u anfacaan, wax u sheegaan ayaan ka rabnaa. laakiin iyagu waa fiican yihiin, dadka haddaan saddex u kala qaadno, waxaa ugu liita qofaan isagu fiicnayn, naftiisana u fiicnayn, bulshadana u fiicnayn, haddana uba sii xunba
oo wax u sheegaya isku diraya maaragta caynaya akhlaaq xumo kula dhaqmaya dadka noocaasa ayaa waxay yihiin kuwa ugu xun qayb dhexaa jirta oo waa dadka hadda aan ka hadlayn intooda badan oo waa dad iyagu aan xumayn laakiin aan anfac badan lahayn ama anficii laga rabay ama kaalintii laga rabay aan buuxin qaybta saddexaadna waa qayb yar oo iyagu waa fiican yihiin lafahooda waa u fiican yihiin oo shar ma laha ama dhib kuma hayaan bulshada intii karaankooda waxbay taraan oo waxtar bay leeyihiin marka saddexdaas qolo ayaa jirta qolada ugu horreysa inaan noqono ayaa fiican haddii taa aan ka gaabinana inaan midda labaad noqono oo ah ugu yaraan dadka shartaada ka hayso intaad dhibi lahayd dadka shartaada iyo xumaantaada ka leexi oo ka hayso qolada saddexaadna waa kuwa ugu liito oo waa kuwa aan hadaayey ka hadlayey oo baraha bulshada xerta badan ku haysta oo maaragtay dad badan ay ku xiran yihiin lagana barto akhlaaq xumo iyo cay iyo waxaan bulshada sii luminaya oo sii fasaadinaya ma noqon doonto habeenkii koowaad isla markaasna ugu dambeeyey laakiin waxay noqon doontaa habeenkii koowaad oo aan horay u soo socon doono haddii ilaa yiraahdo oo aan mawduucyo kalena ama qodobo kaleba aan ka hadli doono haddii ilaa yiraahdo inta aan kulankan mid lamid ah hawada ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa iyo noogu ducaynayaa in ilaahay xanuunkan dhibaatada faraha badan caalamkii ku haya dunida ku haya oo dad badan ay u dhinteen dad badanna ay u bukoodeen oo ku dhacay dadka inta uusan haleelinna walwal iyo cabsi badan ku abuuray oo adduunkii oo dhan meel kasta ama qof kasta saameyntiisa ay u tagtay ilaahay inuu si degdega nooga dulqaado inta u jiranna allaha caafiyo intii u dhimatay ee muslimiinta ana allah u naxariisto adduunkoo dhanna ilaahay ha ka dulqaado ayaan leenahay waxaan idinku dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti dambe oo wanaagsan